mahadsantaha magacayga waa ayaan abshir ciise ahna managerka Hibo Women Development Center ee ku taala degmada Cadaado. ayaan bal waxaad nooga warantaa xaruntan dad gacanta ku hayso goorma la aasaasay. waa mahadsantahay mas'uul xarunta waxaa la aasaasay 2019kii bishii 9aad sidaas ilaa hadda howl maalmeedkeedu ku socdaa. maxaa lagu qabtaa halkan ama haweenka lagu baraa? meeshan waxaan ka caawinaa haweenka xirfadda oo skillska ah oo xirfadda gacanta ah sida cunto karinta, cilaanka, farshaxanka, harqaanka, dhar karinta. intaas oo fursadoodii gabdhaha ka helaan way jiraan ilaa hadeertaan arday kuna faa'iiday arday weli dhigato waxa ka baxday almost 8 waxa ka baxday course oo ka qalin jabiyay waa shahaadi. bilowga asaaska sidee baad ku bilowdeen haddaad nooga warbixin lahayd qaabka aad ku asaasteen meeshan iyo fikirka waxa uu kula dhashay? maasha Allah waa mahadsantahay horta nin howl balbal markii la qabanayo waxay leedahay meel laga bilaabo iyo wax kugu dhalinayo ina qofka uu la kulmo. xaruntan waxa aasaasnay gabdho ku kooban 3 gabdhood. fikradda waxa lahaa aniga gabar kale oo gudoomiye ku xigeenka ahna sidoo kale labadeena soo deegaanka ku cusbayn ayaa dhan hawlo badan dhan aan ka heynaa anaga oo shaqooyin kale aan ka heynay. aniga waxa aad dooraysa deegaanka dhan kale doorasnimo uga shaqeysa gabadha kale tana waxay ku leeyahay xarun oo xanaane ah. marka waxaan aragnay marka dhanka maadaama aan dumar nahay baahiyaha dumarka deegaanka jooga ay qabaan inay baahida ugu weyn ahayd ayuu ka cabanayay dhanka cookinka ayuu ka cabanayay gabdho badan ay leeyihiin maadaama aan sidiinoo kale aanan soo qoraal iyo akhris aanan soo baranin nolosheena xooga gaaba ku jiro wax hadaf aan ku dhaqaaqna ma naqaano xooga gabdhahaas marka aragnay dismoral inay dareemayaan aan maskaxeena aan shiilnay aniga iyo gabadhaas gudoomiye ku xigeenka ah iyo gabadha kale oo ayadana Muqdisho marka safar gaab nooga imaatay waliba safar yar oo ay ku imaatay marka horta halkaas ka bilaabatay waa iswareysano waxaan dhahnaa maadaama baahidan ay deegaankii ka jirto annagana laftirkeena Muqdisho aan ka soo baranay xirfadaas oo laftirkeena ardayaan soo ahaa jirnay waxaan ku maamuli jirnay howl maalmeedkeena caadiga aan ku maamuli jirnay marka aragna anaga inay howl maalmeedkeeni aan ku qanacsanahay aan waxaan isdhaanay gabdhaha walaaliin inta uga faa'iideysan ayaga waxbay u tahay adigu gurigaaga un baad ku qabsataa laakiin ayaga wax badan ay noloshooda ka bedeli kartaa. ما شاء الله الحمد لله فكركم وهرجلي عقبات بدن الرقالة هيسكي ماذن إلا مدة إلا حل قاسيته مالين كستعيد معها أو مالين كستسيد سكول فيجو كلاته ما إسكيني كران أو فيج أرض لقى قاعدة هذا ويرتاح ما كسكرين سمرك وحي كبحة كوستيدي كبحة سيدا جروه كرديسيو كلاته كورنتا أو أشرتو alaaba xataa waxa jira dalab aan ku keeno alaabaha foornooyinka oo kale alaabaha harqaanada oo kale dadka kale qaarkood waxay uga yimaadaan hay'ado iyo wax saas laakiin anagu qarashaan anaga ayaa bixinay alxamdulillah hadeertaan dadkii ka baxay qaar ayaga macallimiina hadeertaan iskuulkii ayaga hadda wax ka dhiga anaga oo aasaasnay intii laga gaaray muddo halka sano ah anaga waxaan ku bixi jirnay waqtigeena qayb kamida aan waxaan ku bixi jirnay voluntary oo macallimiinka ahayn haday noqoto xirfadda gacanta iyo haday noqoto cookingkiiba anaga bixi jirnay qayb sano 3 gabdhood after 1 yearsna waxaan ku guuleysanay gabdhihii fursadii bartay inay barna magaalada uga shaqeystaan sida gabdhaha xinaha barto kaleete deegaanka waxay ka furteen xarumo waaweyn oo hadeertaan laga hagaajiyo dumarka noloshoodii aad ay ugu support gareysay qaarkii kale ka soo haranay iskuulka inay macallimiin ka noqdaan halkaas howl maalmeedka marka uu ku socdo